nin ayaa maalin maalmaha ka mid ah soo raacay doontaas waxaa saarnaa dad aad u fara badan. doontii ayaa qalimatay, dhammaan dadkii oo idil waxay noqdeen kuwa dhinta marka laga reebo ninkii maahin. xeeb ayuu ku soo gaarayn si nafla caari ah, wax dad ah muusan arkin, wax caabiya iska badaayay. faadiyo silic fara badan kadib wuxuu bilaabay inuu dhisto daash isaga oo soo urursaday xaabo. gaajo ayaa qabatay, wuxuu u dhaqaaqay bal in uu raadsado geed miro leh la cuno. hase ahaatee wuxuu dib ugu soo laabtay daashkii u gubanaya. markaas buu wuxuu yidhi, allow, maxaa sidaan igu gashay? habeenkii wuxuu seexday daashkii oo dhistay meel aanan ka fogayn. subaxii ayuu ku soo toosay qaylada markab soo gaaray goobtii uu joogay. raggii markabka saarnaa ayaa soo badbaadiyey. markii ay meel fog marayeen ayuu ku yidhi, war niman yahow, sideed ku ogaateen inaan joogo goobtaas? waxayse ugu jawaabeen, anagoo marayna meel fog ayaan waxaan xalay aragnay qiic iyo holac hawada isku shareeray. dabadeedna waxaan nidhi, meeshaas qof baa ku dhibaataysan oo u baahan caawimaad eena keena. sidii ayaanu kugu imaanay, kuguna soo badbaadinay. haddaba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu wanaag kuu soo mariyaa meel aadan ka filaynin, ee weligaa ha ku degdegin inaad ka xumaato go'aankiisa. ninka wuxuu ka xanaaqay daashkii laga gubay, balse ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dabkaasi ugu bedelay badbaado iyo isaga oo dhulkiisii dadkiisii la ku laabtay. meeqaa dhib ku soo gaara oo ku degdegtaa inaad sabar la'aan isdhiib, lagana yaabo inuu ilaahay subxaanahu watacaala wanaag noo soo wado. sidoo kale ku darso nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wassalaam, dhibka iyo rafaadka ay walaalihiisa mariyeen, ilaahay wuxuu ugu bedelay inuu noqdo boqorka ama casiiska Masar.